wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay bataan dilalka maalaayacniga ah ma waysan haddaba xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer aad aragtaan in ay sii bataan masiibooyinka ka dhasha dabaylaha iyo duufaanada sida daran wax u halaaga ma waysan haddaba xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma dhici doonto saacadda qiyaamaha ilaa aad aragtaan ummaddayda oo islacnadaysa dhexdooda ma waysan haddaba xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma dhici doonto saacadda qiyaamaha ilaa aad ka aragtaan dadka oo ku tartamaya dhisidda daaraha ugu dhaadheer dunida haddaba ma waysan xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma dhici doonto saacadda qiyaamaha ilaa aad ka aragtaan dumarkii oo madaxyadooda ka dhigaya sida kursiyada geela ah haddaba ma waysan xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto ilaa aad ka aragtaan maalmaha oo kugu dhaafa si dhaqsi ah haddaba ma waysan xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto ilaa aad ka aragtaan isbuucyada oo kugu dhaafa si dhaqsi ah haddaba ma waysan xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto ilaa aad ka aragtaan sanadka oo kugu dhaafa si degdeg ah haddaba ma waysan xaaladaasi maanta ku sugnayn wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay diriraan laba kooxood oo waaweyn waxaana halkaasi ahaan doonta dhimasho badan oo labadaasi kooxood ay aaminsan yihiin hal diin ma waysan xaaladaasi maanta ina haysan dhammaanteen wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay soo baxaan 30 dijaal oo beenaalayaal ah oo mid waliba uu sheeganayo inuu yahay rasuulkii alleh wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer la qaado cilmigii yacni ay dhammaadaan culimmadii cilmigii taqiinay oo dhan oo ay isku soo haraan jaahiliintii wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay bataan dhulgariirada wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay bataan maalqabeennada oo islamarkaana ay waayaan waxay maalkooda ku sadaqaystaan wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer uu nin soo agmaro qabri qof kale uu ku jiro oo ku yidhaahdo fiicnaan laheeda inaan booskaagii aniga ku jiro wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay qoraxda ka soo baxdo galbeedka oo ay dadka rumeeyaan oo markaasi maxay u tari doontaa rumayntoodii wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha waxay dhici doontaa iyadoo laba nin ay hortooda fidsadeen maro ay wax ku iibinayaan laakiinsan aysan awoodin inay maradaasi soo dubduubtaan saacadda qiyaamaha waxay dhici doontaa isaga oo nin uu soo listay hashiisii mase awoodi doono inuu cabo caanihii saacadda qiyaamaha waxay dhici doontaa isaga oo nin hagaagsanayo baraag uu ka waraabiyo xoolihiisii laakiinse ma awoodo inuu ka waraabiyo wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha waxay dhici doontaa isagoo qof waslad hilib ah uu kor u soo qaaday afkiisa inuu geliyo uu doonayo laakiinsan uusan awoodin inuu afkiisa geliyo wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer uu ka soo baxo dab arlada xijaas wuxuuna iftiimin doonaa luqumaha geela busra waa meel ku taala shaam waa ayna dhacday arrintaasi oo waxay soo baxday oo la arkay maalintii saddexaad ee bishii lixaad sannadkii 654 hijrada madiine agteeda ayuuna ka dhacay dabkaasi dhimashadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kadib saacadda qiyaamaha ma dhici doonto jeer ay soo baxdo fidnada masiixu dijaal waxayna noqon doontaa guushii ugu weynayd uu gaaro nebi ciise calayhi salaatu wasalaam uu ka adkaan doono masiixu dijaal iyo juuj wamaajuuj ee haddaba dadow ogaada saacadda qiyaamaha waxay ku dul dhici doontaa kuwa ugu sharta badan khalqiga uu alle abuuray oo dhan ee allow ha inugu darin kuwaasi yaa raxmaan allow kuwaasi ha nugu darin ee ugu khayrka daran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu